sala socotaan waxaan noo bilaabanay sanad cusub muuqaalkan waxaan doonayaa inaad idin la wadaago application marka aad iyo aad u faa'iido badan oo aad wax badan uga faa'iideysan karto maamulka waqtigaaga. Application-kan waa application ku fiican dadka caajiska badan ee doonaya marka inay shaqooyinkooda dabagalaan. Sidoo kale waa application loogu talagalay marka in qofka productivity-giisa uu kor u qaado. Marka application-ka waa application shaqooyin badan kulansaday waxyaabaha cajiibka ku yahay oo aad kugu laha kamid ah in uu leeyahay marka waxyaabo badan oo kala duwan kuwaas oo loogu talagalay in kor loogu qaado waxqabadka. ilaa wuxuu leeyahay 4 tool oo marka isaga ku sii dhex jira oo marka hore sida caadiga aniga aan u isticmaali jiray different applications marka imika halkan meel baa lagu soo ururiyay marka waxaan istiri marka teamkaaga asxaabtaada inay ka faa'iideysan karaan la share gareeb haddii aan ugu cusubtaan ugu soo beer waxyaabo badan baa naga faa'iideysan doontaa sidoo kale haddii aad muuqaalkan ka heshan inoo sii share garee like inoo saar sidoo badan u gaaro soo dhawaada markaan isla eegno application-kan cajiibka ah idin la wadaagi doono waxa la yiraahdaa TickTick so TickTick waa application loogu talagalay in tasks-ki event-yada lagu manage gareeyo waxaa jira application badan oo aan qaar hore u isticmaalay maybe qaar aad garanayso laakiin TickTick wuxuu leeyahay features badan oo cajiib ah oo doonayna idin la wadaago so feature-ka koowaad anigoo si degdeg u dul maraysa aad u wada aragtaan waxa weeye in TickTick ka samaysan kartid project-yo kala duwan isaga projects wuxuu u yaqaan lists so list-yada waxay ka caawinayaan marka inaad kala saari karto waxyaabaha guriga ka dhacay shaqooyinka caadiga ah qabanaysid waxyaabaha side hustle-kaaga wixii adiga ugu talagashay inaad caafimaadka iyo waxbarashada ku hormaysiiso personal development waxaad nasba u kala qaybsan kartaa marka list-yada waa muhiim marka list sa u samaysan halkan baa iman kartaa kadibna hadii kartaa add new list taas waa qodobka koowaad qodobka labaad ee barnaamijkan oo cajiibka ku yahay anigu aad kugu lahaa wuxuu leeyahay waxa la dhaho Pomodoro counter Pomodoro waxa lagu talagalay inta badan in shaqada lagu kala jijibiyo waxayna kamid tahay waxyaabaha ama techniques qofku isticmaali karo si uu hoos ugu dhigo dib u dhiga tusaale baan sinayimka shaqooyin badan baa ku yaala waxaad doonaysaa shaqooyinka inaad qabato haddana at the same time mirat inaad qabato ka caajisaysaa waxaas oo kale waxa la dhahaa muha procrastination dib u dhig baa la yiraahdaa inta badan dib u dhigna waxa keena qofka in shaqada intuu isku badiyo uu markaa taskiyada uu kala jijibin waayo so si aad ula dagaalanto procrastination-ka techniques-ka la isticmaalo waxaa kamid ah in shaqada aad kala jijibiso kadibna markaa aad min every 25 minutes baa hal task qabato kadibna aad nasato so tool gaar baa jiro anaan isticmaali jiray oo Pomo Focus la dhaho oo markaan doonayo taskiga inaan qabto waxaan sameynayaa mobilkayga wax kasta oo iska xiraya focus baan galayaa so focuska marka waxaan sameynayaa 25 daqiiqo wax kale ma qabanayo just taskiga oo soo jeesanaya 25 daqiiqo markuu iga dhamaado kadib hawleyga aan iska qabsanaa marka application-ka isaga wuxuu leeyahay Pomodoro ku dhex taala oo loogu talagalay timer inaad isticmaasho taskiga inaad ku baabi'isid okay halkan hadda timaad imika calaamada yar ee dhibicda ah ee focus-ka oo loogu talagalay marka taabato xagan waxa arki doontaa marka taskiyada ku yaala iyo Pomodoro-yinka u kala qabsan kartid marka xagaas arday taabto imika halka taskiga ay igu aadan taskiga un baa ka qoraysaa for example imika taskiga hore ana iska samaysto sample diyaar warbixinta iibka oo kala ay dooran hadda marka start dhaho timer baa la ii bilaabayaa timerkaas marka 25 daqiiqo ka soo tirsamaya hadhow markuu dhamaado notification baa la siinayaa kadibna wuxuu dhahayaa naso 10 daqiiqo so 10 daqiiqo iska nasan kartaa haddana wuxuu ku leeyahay task kale soo qabo ilaa maalintii hadda 4 mar aad 25 daqiiqo shaqaysid oo laakiin si focus la u shaqaysid wax badan baa ku qabsoomi karaa marka waa feature-ka kale cajiibka uu leeyahay TickTick oo marka anigu aad ka ugu helay feature-ka kale uu leeyahay TickTick ee aan anigu aad ku helo waxa kamid ah kan iska joojino indhi baan dhahaynaa waxaa kamid ah halkan haddaad timaadid meesha 3 dhibic ku taalo wuxuu leeyahay wax la dhaho Eisenhower matrix so Eisenhower matrix wuxuu kamid yahay techniques-ka loogu talagalay shaqooyinkaaga in priority-gooda lagu kala horeysiiyo marka qaybtan dhan muhiimadda leedahay ama wax loogu talagalay waxa weeye inaad samayso wax loo task prioritization so task prioritization waxa weeye shaqadan ku taala marka hore inaad kala qaybisid aad tiraahdo maxaa muhiim ah maxaa muhiim ahayn waxa soo kala qaybinaysa marka Eisenhower matrix waxa weeye farsamo la isticmaalo ayada marka shaqada 4 qayb bay u kala qaybinaysaa halkan dad timaadada marka wuxuu ku siinayaa 4 god buu ku siinayaa so dadkaan aqoonin Eisenhower matrix 4 god waxa la yiraahdaa godkan sare waa godka ugu muhiimsan waxa godka galay wax degdeg ah oo hadana muhiim ah so shaqadan waa ku muhiim hadana waa degdeg that means hadii imika qaweysid wax muhiim baa ku dhaafay qaybtan kale iyada waa huruud weey waxa soo galay wax aan degdeg ahayn laakiin muhiim ah okay taasoo kale waxa la sameeyaa marka dib baa loo dhigaa oo waxa loo sameystaa jadwal laakiin waxa muhiim bay ku yihiin laakiin hadda ma laga rabo marka waxa dhigi kartaa Briam saadan baa qabanaya qaybtan kale bluega ku soo hartay shaqadan waa degdeg laakiin se muhiim ah soo tan inta badan waxa la sameeyaa dad baa loo dirsadaa ama waxa la sameeyaa hebel oo iga qabo shaqada ama delegation baa la sameeyaa hadii aad tahay maamul ama team uu kula shaqeynayo teamka loo kala diraa xagan oo ku soo hartay tan greenka ay geeskan ku taala waxa la dhahaa not urgent and not important so inta badan halkan waxa la geliyaa shaqooyinka
aan la rabin in la qabto marka imika automatically wuxuu sameeyaa marka halka imaado dhammaan shaqooyinkayga godkaas buu ku wada riday so shaqooyinka kan ku jiro waxa shaqooyin sample ah oo applicationka markaas ka diiwaan gelisid uu ku siinayo marka waxaa sameyn kartaa shaqadii muhiimka ah adiga inta taabatid ba soo jiidi kartaa waxa keeni kartaa marka godka mid kamid ah like waxa dhigi karaa shaqadan waa urgent waa important marka waxa la siinayaa marka taas oo kale highest priority marka shaqooyinka marka saa u kala habeysatid mar walba waxa iman kartaa qaybtan si aad u eegto maxaa godka muhiimka ku jira maxaa godka muhiimka ku jira si marka u kala eegto so waxay ka mid tahay features ku leeyahay cajiibka waxaa jira farsamo barnaamijyo gaar ah oo intaan kaliya loo isticmaalo laakiin tig isaga way ku dhex jirtaa intaano ma u baahan inaad meel kale ka doontid featureska kale cajiibka ah uu leeyahay barnaamijkan tig oo aniguna aad kuga laxa ka mid ah in aad habit tracking wax loo samayn kartid habit tracking in yar haddaan idiin sharaxo waxaa weeye waxaad doonaysaa tusaale ahaan inaad caadooyin cusub oo wanaagsan ay yeelato caadada sida la socotaan ama habitiska qofka waxay uga baahan tahay inuu joogteeyo for example imika waxaad doonaysaa inaad isbarto wax akhriska so caadooyinka sharciyada koowaad ee leeyahay waxaa kamid horta in number 1 inaad ka dhigto wax yaroo fudud number 2 na markaa aad joogtayso oo daily u qabato ama weekly ama sida aad ugu tala gashay laakiin waa inay jirtaa consistency labadii maalin mar qabo maalin kasta qabo usbuuc mar qabo sida aad ugu tala gashay marka barnaamijkan wuxuu leeyahay qayb dhan oo loogu talagalay in habitska lagu talaagalayo haddii imika aad timaadid halkan calaamada saacada kale ku qoran tahay habit tracker baa la dhahaa xagaa marka wuxuu ku tusin doonaa marka develop a habit every little bit counts marka hadeertan waxba ma tusinaya imika wax habit kuma jiro marka laakiin waa gashan kartaa habit so habit saa ugu darto waxaa sameynaysaa halkaas tare blaska ku qoran taabanaysaa kadibna wuxuu ku siinayaa marka formka diiwaangelinta caadada cusub for example imika caadada waxaan dhihi doonaa akhri book maalin kasta okay way xagan icon-kan waan ka bedeli karaa icon yaro book akhris ku saabsan isoo qabo for let's say may book wax la iska soo qabo like maybe hida book waa kaasa okay so icon-kan waan ka bedelnay xaga marka frequency book weydiinaa so frequency wax kala maahan waxa weeye integer baad markaa soo celcelinaysaa habitka marka daily baan ka dhiganaa inaga waxaan doonaynaa si daily ah inaan wax u akhrino sidoo kale xaggan achieve all baan ka dhiganaa waxaan doonaynaa maalin kasta habitka inaan qabano so waxaa ka dhigi kartaa inaad limit u samaysaa tiraaho isbuucii haddaan 4 jeer akhriyo waa okay laakiin aniga waxaan doonaynaa inaan every single day aan habitkaa qabano xilligaa bilaabaysid maanta ka dhig goalskaaga waxaad tidhahaa habitkaygan 21 cishaan ku wadaya marka tan waxay ku sheegaysaa intee cishaa doonaysaa habitkan inaad wado marka ilaa saddex sanad baa u badan haddaad doonto kastan baa ka dhigi kartaa ka badi kartaa sanad laakiin sanad 100 maalin 30 maalin iyo 21 maalin soo 21 ka maalin ku dhaafeena sidoo kale xaggan ma waxaad doonaysaa xilligaa doonaysid inaad qabato habitkan ma habeenkii ma subaxdii marka waxaan dhihi doonaa anaga night nooga dhig waxaan doonaynaa habeen kasta inaan wax akhrino xaggan marka reminder buu noo sameynaya habeenkii xilligaa buu habitkan kusoo xusuusinaya sidoo kale xaggan markaad taagtid haddii aad click siiso maalin in markasta markaa uu ku weydiiyo habitki maanta ma qabatay pop up buu kuusoo sameynaya marka notification hadda urutid taana ku darsan kartaa marka imika kaana ku daraya save baan dhahayaa kabacdi xaggan markaa imaad imika hal habit baa inoogu soo biro la dhaho akhri book maalin kasta okay xaggan wuxuu sheegay inta maalmood ay akhriyay iyo inta maalmood ay dhaaftay so meesha marka dhibcahan aad u fiiristid waxa dhibcaha maalin kasta leega doonaa inaan tigta saaro laakiin imika tan maanta aan dul taagana waa kan waa 24 December waa xilliga video aan duubayo tigta marka hadii imika aan saaro wuxuu ii sheegayaa marka inaan qabtay qoraal yar ku qori karaa inaan ku soo sharxaan dhammaan taasas beeheed waxaas baan qabtay marka save baan dhahayaa hadeertan halka maalin waa la ii saaray tigta xaggan daa u fiirsatay marka one day baan check ku sameeyay kan casan waxa way streak waxa la inta maalmood isku xigto marka shaqadaas si sax ah u qabatay marka haddii maalin ka bood streak uu ka baabay dib uu isku soo bilaabay marka taasna waxa way qayb kale oo muhiim ah u leeyahay application kan tig soo muuqaalku nagu dheeraaday intaas baan doonayna inaan ku joojiyo marka barnaamijkan tig sanadka 2025 ka doonaysid inaad waqtigaaga si fiican u maamusho waa application leh marka features badan oo kala duwan waliba hal feature kale aan ilaaban ku daro yara fudud barnaamijkan wuxuu leeyahay marka inaad multiple platforms ku isticmaali kartid like mobilkaaga ku shuban kartaa computerkaaga macbook windows any system walba wuxuu leeyahay app gaar ah ku shuban kartid marka mobilkaaga ka soo gelin kartaa taskiska waa ka dhameyn kartaa check waa ka sameyn kartaa qasab ma mar walba inaad computerkaaga haysatid notificationka mobilka kugu soo dhici karaa si marka aad u aragto waxyaabaha ku yaalo marka barnaamijkan kaliya ma ahan to do list laakiin waa barnaamij intaa ka ballaaran marka qayb yar wuxuu leeyahay calendar ah so calendarku waa qaybta kaliya marka lacagta ah hadaa calendarka aad u isticmaasho bishii meelaha $5 waxa inaad bixisid way upgrade ku sameysid laakiin aan uma isticmaal calendarkan oo Google Calendar ma isticmaala marka barnaamijkan
وبرنامج جيم تشينجر سنة كانت استعدادونيس إن هذه استعمال تو دو ليستي the best وانا إمي كان ريكومند قرين كرواكن هذه تو دو ليستي كلا استعماشين حاوي كوا اسكوادو maybe دادون تكسو جور كرتا دارت إن فرصة كان كفايته مقال كان تسبوكو جاي هذه مقال كفايته إنه سي شير كريم سو كلا دانو عصبتان وصبر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.